أحمد عول سلام سارة ساسفن سوكا تاجي أنكو سلام يا أحمد عول أدمنكو سلام السلام عليكم ولا لا أدمنكو سلام يا سو دوادا لما أنتي بسوا دوادا عادي أدمن سلام يا أدمن سو دوينيا حيلتها قفنا دب كلام ودلان قفنا دبعته مسوي يبسني تدخان تجي قفنا كمريانين إن دبعته كل عضو لكن سوحة عادي أنا نروح ماذا قف ولا الكاية دبعته كل عضي واحد وفرحس واحد سعبده وقتمسي واحد متقانع سكال يلعب أوتسيس إنه كفرحس أنت قف كاسين دبعته كل عضي عادي أنا نروح معي waxaan ka hadlaynaa Cabdimalik Muuse Codon waan ka hadlaynaa Cabdimalik imika muddo xiran yahay saafo qabtaanba ciyaarahan kuma ilaaween Cabdimalik dadka qaar baa isooranaya Cabdimalik maadaama uu jeer galay waa la ilaawaya laakiin Cabdimalik ruuxan ciyaaraha ku ilaawayna ma aha Cabdimalik waa hero waa geesigeeyay anaga jecel anaga daba socona inta Cabdimalik cadowga ka hayna waxaan leeyahay dan هاي عبد الملك أنت عدوك وين حاسد نبيلتاي ما أنت واحد داودي قدوميه إن حبضة سوماليلاند سو حريليه جود بها أو ما أنت لقوا ورئيستي مستشاري بهاد لقوا ورئيستي لندن مركزه حيري أنا أستين أكاديمية سنسفع عن سكون مقلنا حريليه جود محيطين سوماليلاند أيا يمي لندن مكاوالا ورئيستي سعيد أدبنكو سلامي سيد هيبا أدبنكو سلامي والالو سودو مركاوالا ورئيستي مركي لا ورئيستي حريليه جود وحيرين عبد الملك أرنت لو حري متقانة وسوق بيه قدوميه قبل كا مرود الشيخ مالنتي عبد الملك الحريي يو أرنتنو كسوق بيه إن حريليه جود تيفيجا والبخون كيبل تيفي بهاي هذا دوني سنة ولا داون كرتان بيج كي جنب بصور دقي فيسبوك سلام سريع أدبنكو سلام يا مانديلا أيا صور دقي مركا إن وحيري برس أدبنكو سلام هذه أدبنكو سلام سو ذا دواء ذا دمانتي بعد بني سو ذا دوينيا أرهنت المانتي إسوك عيسى وحيد عبد الملك قصة اللي حراي وإنه أخريه إن محيط قدوميها قبلك مرود الشيخ إنه أخريه iyo arintan maanta uu TV ka sheegay xiriiradayaha guud ayaa different waa laba arimood aan islahayn taasina habkaas u socota gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeexna wuxuu inoo akhriyay oo wuxuu yiri Cabdimalik waxa lagu xiray maadaama uu farmaajo u tagay iyo qodobo kale oo waliba lagu waayay qodobo kale far badan wuxuu weynoo qorsan inuu mu sheeginin qodobadii dastuurka uu inoo soo bandhigayna ma bay ahayn dastuurka Soomaaliland qodobo ku jira haddii aad dib ugu wada noqotaan in dastuurka Soomaaliland Google-ka ayaa kala soo wada digi kartaan waana eegi kartaan dastuurka Soomaaliland wuxuu ka kooban yahay 130 qodob qodobka lagu qaaday Cabdimalik Muuse Codon ay soo qorteen horta dastuurka Soomaaliland kuma bajiro wuxuu ku jira dastuurkii dawladii hore ee Soomaaliya ee burburtay waa dastuurkii 60 la deema taqaanaa la hirgeli kaas ahaa kaasuna ku jira marka in xeerkaas wali uu shaqeeyo Soomaaliland uu ka shaqeeyaa marka waxay agtay in wali dastuurkii Soomaaliya la wali la isticmaalayo marka runtii kaas halka ma ku dhaafo dhowr jeer horan ka hadlo dhowr jeer horan inuu gudbiyo dhowr jeer horan inuu sheegay wuxuu dib ugu noqon maayo waa qodobo aan meesha ku jirin oo ay dawladdu iska soo macmaatay meesha kanta bahay taa kama xumaan waxaan ka xumaaday waxay inoo akhriyeen dastuurka waxay inoo akhriyeen ee inoo sheegeen iyo waxa uu maanta xiriirada TV-ga kala ha uu sheegay ayaa completely laba iskarab socdo different ah wuxuu yiri Cabdimalik waxa lagu xiray waxa ahayd aflagaado ama mataqaanaa kicin shicib uu u geystay dawladaha Jiraanka oo kicinayay marka dawladaha Jiraanka waxay noqon doontaa dawladda ay walaalanahay Ethiopia oo noqon kartaa runtii qof bilaadan khalad uu galaa qof bilaadan mataqaanaa hadal uu ka soo dhacaa
dasan min markaa cabdimaalig de intuu jabhad urursaday uu meel ka urursaday inuu kicinayo lahaa dowladda maxay tahay Ethiopia dagaal ku qaad ma aha micnihiisuna taa ma ahayn laga yaabo cabdimaalig inuu Soomaalinimo iyo ummadda Soomaaliyeed uu u hadlayo lahaa de Soomaali baynu nahay yani jacayl Soomaali uu ku jiro uu u hadlayay laakiin wax nacayba oo cabdimaalig uu qabo dowladda aynu jiraan ka nahay Ethiopia iyo wax ma taqaanaa abaabul uu ku jiro uu abaabulayo lahaa dagaal ku qaada ama ku kaca ama ma taqaanaa ma ay jirto haddii dagaal wax laga qaadayo haddii abaabul la galayo dowladdii xoogga lahayd Siyaad Barre ayaa 1977kii dagaal Ethiopia wax kaga qaadi lahayd macdala waaba maanta cabdimaalig oo hal shakhsi kaliya ah I don't think so taasi wax suurtagal ah inay noqonayso ila ma aha marka hadduu dalqaaf ka soo dhacay ama hadalla ay diideen dowladda Ethiopia oo ka soo dhacay cabdimaalig ama ay Soomaalinimadii ku jirtay ay halka ka muujisay ama ay diidayaanba inuu muujiyo Soomaalinimadiisa inuu muujiyo ay diidayaanba oo ay taa ka gubanayaan taasi ma aha mid uu jal ku mutaysto taasi ma aha mid uu jal ku mutaysto qof walba dalkiisa uu jecel yahay qof aan dalkiisa jeclayn oo jecelka iyo ma taqaanaa la jecelada inta laga aan ku jirna de ma jiro hadaan idinku jiro adin idinku jiro waxa tiin dad bila damiir baati marka qofka mas'uulka ah ee inta la soo qabtay waliba ku xiraya ee xadhiga ku mutaysanayo dowladda Jiiraanku hadal khaldan ka sheegay ama dowladda Jiiraanku kiciyay laba sano xadhiga ayuu ku mutaysanaya muwaadinka dhan ee ma taqaanaa ee ku naxayay ee ku naxariisanayay ee maatidaadii maxay tahay u kacay ee ma taqaanaa danyartii caawinayay dalka intuu u qabtay maanta aanad adigu u qabanin aad ku xidhay ee laba sano xadhiga uu ku mutaystay waxa ila tahay inay damiir xumo tahay iyo aqoon darro aad u liidatay inay tahay dhamaanteen baan isku wada raacnay oo isku afkarana dowladda Jiiraanka ee aynu Jiiraankana Ethiopia de qofna uma geysanayo aflagaado uma geysanayo qofna dhaawac uma geysanayo qofna intuu mataqaanaa jabad abaablo dagaal kuma qaadayba ila tahay laakiin se cabdimaalig si khaldan baa loo fahmay mataqaanaa dad baa hadalkiisii iyo wuxuu ku hadlayay inta ay mataqaanaa ay rogeen dabeetana u arkay ama u fahansiiyay dadkii kale u fahansiiyay cabdimaalig inuu sida uu jeeday laakiin ujeedadiisu saama ahayn ujeedadiisu waxay ahayd dal jacayl qof dalkiisa jecel qof dadkiisa jecel maadaama uu dalkiisa iyo dadkiisa uu xoog u jecel yahay in laga faa'iideysto oo mataqaanaa dhibaatada inta leeg loo geysto oo hadalkiisii la bedelo oo dabeetana jeel ku mutaysto laba sano ah runtii waxaan arkaa qalad aad u weyn waxaan rajaynayaa inay mas'uuliyiinta Soomaaliland ku qaaday mataqaanaa cabdimaalig xadhiga asaga ku qaaday ama soo abaabulay kiiskan asaga soo abaabulay inay mataqaanaa isla yaabaan inay dib isugu noqdaan inay isku xishoodaan dunidu maanta waxay ku wada fadhidaa jaanbad bay ku wada fadhidaa dunidu maanta wala is wada ogyahay wala is wada garanaya internetka yar baa ina maamula wax walba isgaarsiintu dunidu way soconaysa straight away marka runtii waxaan aad u jecelahay damiir darrada inta leeg ee qof muwaadina oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo wax u qabanaya inaad ku xidhid waxyaabo caynkaas oo kale aad baan runtii uga xumahay kullee anigu waan ka diiray aad baan uga diiray aadna waan uga xumahay waxa kale oo aan leeyahay gudoomiyihii xerilaalihii guud xalay toole TV-ga ama habeen horeba TV-ga laga wareysanayo hokeyba laga wareysanayo runtii wuxuu ekaa qof daacad ka qof ma taqaanaa hadalka ka soo baxay uu daacad ka yahay buu ekaa wuxuu lahaa iyo wuxuu u sheegayna runtii aad baan u rumaystay laakiinse gudoomiyihii gobolka Maroodi Jeex maalintii cabdimaalig la xukumay de hadalladu ku hadlayay iyo wuxuu soo gudbinay taaban u arkaa inay tahay meel abuur taaban u arkaa inay tahay meel ka dhac taaban u arkay inaanu xaq ku soconin marka waxaan jecelahay hadduu daawanayo iyo hadduu dhageysanayo iyo hadduu gadaal warkayga ka soo gaaray intaba waxaan jecelahay adduunku maaha mataqaanaa maanta oo kaliya adduunku waa wareegto waa caawiye bari laga yaabo britole inay adiga ku timaado marka dunyadaad u tiraan ku leeyahay aakhiradaad u tiraan ku leeyahay qofna kuma waaro mataqaanaa kuma waaro xumaan kuma waaro qofna mataqaanaa nolol adag kuma waaro
qofna dhib kuma waaro qofba maalin bay soo marta waa laga baxaa waxaan marka waxaan leeyahay adigu ha mutaysan hana dhiganin yacni magacaadii aada u xun adduunka iyo aakhiraba dib isugu noqo waxaad samaysay dib ugu noqo ilaahaaga weyna waaxidka ah ka baq ninka maskiinka ah ee mataqaanaaye aabbaha ah ee xaaskiisii sugayo ee hooyadii sugayso ee faamiligiisii sugayo ee intaasoo danyari ay u fadhida ay sugayso uu quudinayo uu shaqaynayo caawinayo adinka mas-uuliyaddiini kasoo baxaynin ama aan mas-uuliyaddiini qabanayno haddana inaa mataqaanaaye ku xadgudubtaan oo ilaa xeerka aa ku socotaan oo xorriyaddiisii ka qaadaan oo aad jeelka ku ridaan runtii waa wax aada iyo aada looga fiican yahay waa wax aada iyo aada u liita waxaan idin leeyahay dib isugu noqda fakara oo dib isugu noqda adduunyadu maanta oo keliya maaha waa wareegta weeyaan berri iyo maanta weeyaan waa berri iyo maanta adduunyadu waa garaantaa wareegta weeyaan marka beritoole haddaad adigu maanta taa ku kacdo taa samaysid marka beritoole adiguna dacarteedii waad dhadhamin doontaa insha allah dhammaantiinba aada iyo aad baan idin wada salaamayaa waanu usoo ducaynaynaa cabdimaalik aada iyo aad baan cabdimaalik ugu soo ducaynaynaa waxaanu leenahay cabdimaalik waxba ma noqonayo insha allah mid ma noqonayo isagoo nabada ayuu kasoo baxaya jeelka kasoo baxaya waxaana u kordhaya waxa weeyaan waayo aragnimo waayo qofka bini-aadanka maalin walba oo ku dhaafta waxa aad ka korsataa waxa weeyaan waayo aragnimo soo kordhaysa isaga alxamdulilah rabbilcaalamiin dee jeelka dhexdiisii aydaar aad baan kuu salaamaya aada iyo aad baan kuu salaamaya dee jeelka dhexdiisii ayuuba de mataqaanaa intanoo ku jira jeelka qofka jeelka ku jira ayuu qur-aanka ku baraa uu mataqaanaa carabida ku baraa uu diinta ilaahay ku baraa uu ku shaqaystaa marka xalaali wax ka maqani ma jirto haddaadan ku isleedahay waxbaa kama maqna aakhiradiisi buuba u shaqaysanaya runtii laakiinse waxaan aada iyo aada u jeclaa ilmihiisa yar ee intaa la eg ee idinla hadlay ee idinsoo bandhigay ee idinsoo dubay massageka ee idinku yiri aabbahay iisoo daaya yacni ubadkii heer somaliland baan ahay aabbahay please aan fadlan iisoo daaya ee aa mataqaanaa xitaa hadalkiisa waxba kasoo qaadi weydana dhegaysan weydin dad waaweyn haba dhegaysanina oo annaga habana dhegaysanina oo dadka qaylinaya haba dhegaysanina oo ma ilmaha yare intaa leeg ayaa u nixi weydeen u dhagaysan weydeen oo hadalkiisa waxba kasoo qaadi weydeen taa waxaan u arkaa aan xardara aan u arkaa waxaan u arkaa inaan idin naxaynin waxaan u arkaa inaan idin digaxaynin waxaan u arkaa inaan idin yacni cid allaali cid aa u joojinaysaan aanay jirin marka aada iyo aad baan uga xumahay unaxaan idin leeyahay haddaa maatidii u nixi weydeen haddaa danyarta u nixi weydeen haddaa masaakiinta u nixi weydeen waxaan idin leeyahay unaxa dadka masaakiinta iyo ubadka yaryar uu ka tegay uu biilayay uu aabbaa u ahaa gabadhiisii baa joogta oo aad jeelka garideen oo ka xidheen ubadkiisii waa ka xidheen dadku caawinaya waa ka xidheen cid walba waa ka xidheen maxaa markaa mataqaanaa damiirka idinku jira maxay tahay waxaana aada iyo aada ula yaabanahay dadka halkan iyo haa bandel dadka halkan mar walba kusoo qoraya maxay tahay qarankiisii baa xidhay waxaad oonaysaa cabdimaalik wuxuu ku leeyahay qarankiisii baa xidhay qarankiisu dee qofka waa la xidhaa laakiin qofka waxaa lagu xidhaa qofka markuu dembi galo qof aan dembiba gelin waddan baa tagtay qof aad la soo sheekaysatay oo weliba sheeko kale inugu hoos la maanta oo inalka qarnaya sheeko kale inugu ilaahay baa kashifo kuwan iyagoo hadlaya ee bannaanka soo dhigaye sheeko kalena ugu hoos laaban tahay maxay tahay qaran buu duminaya iyo qaran qof kaliya ma dumiyo qaran qof kaliya ma dumiyo qaran qof kaliya waxba ma yeelo qaranku markii hore aanuba qaran ahayn dee hadduu qof kaliya uu qaranka ku duminaya markii hore aanu qaran ahayn marka arrintu qaran maaha laakiinse dadkiinan daba yaacaya durbaanka u tumaya ee mataqaanaa leh qaran buu maxay tahay waxyeelay ee aan fakaraynba ee aan dib isugu noqonaynba ee aan isweydiinaynba talow sheekada xaggay u socotaa talow ninkan maxaa loo xidhay talow ninkan maxaa dhibka loogu sameeyey durbaanka u tumaya ayaan runtii aada iyo aada ula yaaba waxa weeyaan qofna ma jecla in mataqaanaa inta la qaado jeel gurido one day maalin kaliya haddii laydinku yirahdo kaale ha laydin xidho jeelka laydinku riday oo xorriyaddiina ha idinka qaadin xanuunka ay leedahay waa iska garan kartaan bay ila tahay waa dareemaysaan bay ila tahay marka si yaroo mataqaanaa aan xandaraa ama si yaroo mataqaanaa aani damiirba idinku jirin ama dhiig naxaaba aanu idinku jirin halkaa intaa iskaga soo qortaan mataqaanaa ha la xidho wixii la doonaya ha lagu sameeyo jeelka liinta ha kusoo cabo
dadkiisina ay ku daawanayaan ama ay ku akhrisanayaan haddana aad sheeganaysid inaad tahay qarankii aad tahay inaad tahay dadkiisii aad tahay inaad u naxaysid inaad isku dad tihiin inaa mataqaanaa dee meel kasta wada jeedaan haddana aad saa u hadlaysid runtii dad aad iyo aad fara badan ayaa waxa gelaya mataqaanaaye shaki dad aad iyo aad fara badan waxa gelaya way isweydiinayaan waxbaa la isweydiinaya waayo anu maalin walba markaan qoraalada caynkaas oo kala arko waxyaaba fara badan baan isweydiiyey dib baan u fadhiista waxyaaba fara badan baan isweydiiyey waxaana dadkan maxay tahay yacni cadaawadda intan la eg ee dadkan ku jirta ee heerkan cadaawadda intan la eg ee heerkan ay muujinayaan maxay tahay haa waa la sheegay waxa la yidhi wuxuu xidhan yahay dowladda jiiraanka ayuu xidhan yahay iyo mataqaanaa kicin uu kicinayo dowladda jiiraanku kicinaya runtii de anagu dhibaato meesha umana soo fadhiisanin dhibaatana ma doonayno mana doonayno mataqaanaa dowladda jiiraanka iyo etoobiyaba inaanu anagu mataqaanaa aflagaado u geysano inaanu dhibaatayno ma doonayno waayo qofna ma doonayo inuu mataqaanaa uu dhibaato faraha la galo abaabil iyo dad kicinu cabdimaalik ku jiro dowladda jiiraanka ku kiciinayn kuma jirin wuxuu ka aliyay waxay ahayd danta ummadda iyo ummadda Soomaaliyeed ama Somaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Djibouti ha noqoto dee shanta Soomaaliyeed dantoodun buu cabdimaalik ka hadlayay laakiin cabdimaalik marnaba dee faraha lama gelin Ethiopia kama hadal laakiin laga yaabaa inuu hadallo cabdimaalik afkiisa kasoo baxaya ama siduu u hadlayay inay yacni khalad u arkeen inay ka damqadeen inay diideen ka bacdina markaa ay mataqaanaa yiraahdeen waxyaabahaas oo dad kalena ay weji kale u sameeyeen ama ay hadalkiisii rogeen waayo anigayga nimanka idinla hadlaya hadalkayga dad fara badan oo waxaa jira rogaya dad fara badan oo waxaa jira hadalkayga guracaya meesha xumaan kalena way ku jirtaa Soomaalina wayna runtii isu sheegaynaaye siin isu qabyaaladeenayno aynu isu xaasidayno aynu isu reebayno ayaynu mataqaanaa khayrkeen ka hadhnay Saciid Sanaan sare waraala waan ku salaamayaa walaal aad baan ku salaamayaa ayaynu khayrkeen ka hadhnay marka waxyaabo fara badan baa iska jira meesha iskaga jira oo mataqaanaa la gudbiyay reportka waxyaabo fara badan oo lagu qoray baa jira qalad fara badan oo dowlad laga dhaadhiciyay baa jira meesha laga dhaadhiciyay baa jira oo aanaynu imaka mataqaanaa inagu farta ku fiiqi karaynin oo aanaynu sheegi karaynin laakiin se Soomaalidu iyada cadow isku wada ah iyada isku wada foorarta iyada cadow isku wada ah iyada cidbaha isjaraysa iyada mataqaanaa isdabargoynaysa iyada isdilaysa iyada dalkeedii qaribtay iyada isxasuuqday iyada maanta heerka maraysa iyada maanta adduunkii meel walba oo ay istaagaanba yacni khas laga leeyahay marka dee xaggaynu u soconnaa marka meeshaynu u soconnaa waa xaggee adduunyadii meel walba isku soo qaribnay meel walba isku xaasidnay meel walba isku soo qarxinay dalkeennii soo qarxinay isa soo gubnay isxasuuqnay marka maxaa xaggaynu u soconnaa waa yaabanay wallaahi waa waxyaabana aad iyo aad ula yaabo qof hadduu juq yiraahdo hadlana afkaa lagaga soo boodaya afkaa lagaga soo boodayaa 19 mataqaanaa su'aalood iyo 19 jawaabood oo aanad galabsan ayaa mataqaanaa indhaha lagaga dhufanayaa lama ogola inuu qof hadlo lama ogola qof inuu dadkii toosiyo lama ogola qof inuu runta sheego lama ogola qof inuu mataqaanaa wax runa oo muuqda uu ka hadlo cidbaha iyo cagahaasa la isu wada haystaa waa la is wada xaasidayaa dalka waad aragtaa ta ka socota marka runtii wallaahi anigu waan yaabanahay aad iyo aad baan u yaabanahay runtii dee aad iyo aad baan dhammaantiin ba idin wada salaamaya siyaasiga xorta aad baan kuu salaamaya walaalo aad iyo aad baan kuu salaamaya dhammaantiin ba aad baan idin wada salaamaya cabdimaalik muuse coldoonna waanu usoo ducaynaynaa dowladda Somaliland waxaanu ka codsanaynaa waxa cabdimaalik lagu xukumay 2 sano loogu xukumay maaha waxna qanciyay maaha wax naga degay maaha wax meel inta lala soo fadhiisto la yiraahdo muwaadin dhan ayaa xuquuqdiisa halka lagu mariyay yacni waxbuu abaabul iyo dowladba waxay ka xanaaqdo oo afkiisa ka sheegay maaha qofka hadaan hub qaadanin qofka hadaan dagaalamin
qofka haddaan lagu qabanin isagoo ama jabhad meel kula jira ama ururinaya ama dagaal abaabulaya haddaan lagu qabanin caddayna aan lagu hayn waxbuu afkiisa ka yiriyo waxbuu sheegay oo lagu xiday dee waxaasi maaha mataqaanaaye xaq maaha waxaasi cadaalad maaha wax lagu dhaqmo maaha mid kale mid baan idin sheegayaaye maxay tahay mid baan idin sheegayaaye dowladda Somaliland xukunka imika ka jira Somaliland ka jira waxa weeyaan waa dowladii ugu xariga badnayd waa dowladii ugu cabrinta badnayd waa dowladan aad iyo aad uga yaabay wallahi mucjisto weeyaan waa dowlad aad uga yaabay tan dowladani intay mar fadhiisato miyaanay fikirin oo aanay isqabanin oo aanay is oranin taro waxaan aad dadka kula kacaysa waa wax yaab leh yacni dowladii si aad barre wax lagaga caban jiray dadkii bay xidhay dadkii bay cabursay dadkii bay mataqaanaaye ay waxaan ku samaysay dadkii way diiqadoodeen qofkii juq yiraahdo waa la jiidaya jeelka lagu ridayaa dhibaatooyin saas oo kale oo fara badan ayay dowladii dee siyaad barro runtii ay dee ku dhacday oo mataqaanaa lagu dagaalamay wixii shalay laga dagaalamayay waxa uu yacni u eg ayay dowladani ay samaynaysaa I don't know wax adinka idinka si ama garanaya haddana shacabka u tumaysaan ma garanayo how imsa qof waa imka jeelka la dhigay oo lagu dhigay yacni wax allaaleyo wax cadayna iyo wax proof iyo wax lagu xiray toona aan la garanayn wadadkii sida xoolaha ayaa dhagta la iska soo qabqabsanaya markaas jeelka lagu ridaya waa yaabana waa wax aad iyo aad loola yaabo marka dowladda imika jirta ee Somaliland ka jirta wallahi billahi tallahi inana walgay Ilaahay Somaliland aanan ka hadal walgay Ilaahay Somaliland xumaanay leedahay inana sheegin walgay Ilaahayna Somaliland inaanan mucaarad ku noqonin siyaasadna meey soo xad gartay ma siyaasadna inaan dhex galo ma aan jeclayn laakiin sanadka maanta waxa siyaasadda dhex dhigay oo aan halka uga hadlaya waxa weeyaan waa dowladan ayaa waxa iiga muuqday oo aan mataqaana indhaha ku qabtay inay tahay dowlad si aad iyo aad u falxun u soconaysa marka de waxa aniga ii soo jeediyay ee aan siyaasadda u dhex galay ee aan wax hadlay siyaasadda meeyay qow anigu siyaasadda meey kursina kama rabo mataqaanaa mana doonayaan aan galo laakiinse de waxaan u ahay ama aan afkayga ugu hadlay waxa weeyaan wixii qaldan ee bini'aadanka ku dhacaya ama wixii qaldan ee maatida ku dhacay inaan u soo jeediyo aan dhado waxaasi way qaldan yihiin waayo la iskuma raaco dulmiga la iskuma raaco dulmigu waa wax aad iyo aad fuuxun haddaan maanta ku arko aduu dulmi shacabka u tumayaan ku dhado war ka joogso waa dulmiya walaal abdikariinaad baan ku salaamaya oo aan ku idhaahdo war ka joogso waxaanad shacabka u tumaysa waa dulmi de inaad cadow igu noqoto igu soo jeesatid oo dabeetana aniga aad dabiicaydid oo aniga aad dabeta 19 abaabul aad iisoo samaysatid 19 Facebook iisoo samaysatid 19 kan iisoo samaysatid aniga dib iisoo ataagtid maaha uma baahnid waxaasoo dhan uma baahnid because anigu adigan dantaada ka talinaya adaan ku lahaa war waxaan la sameynaya waa wax khaldane bal inala eego inaga qabta baan ku lahaa haddii aad wixii garan weyday midda kale dowladdu dee hal qabiil dowladda iskama laha dowladdu waa dowlad cid walba way ku jirtaa qabiil walba waa ku jiraa waxa dowlad loo yiri marka dowlad la dhisayay de qabiil walba de dowladda wuu ku jiraa marka ma aha marka dowladda soo hadal qaado inaad tiradan waa qabiilad baa laga hadlaya qabiilad baa lagu ataagaya ma runtii qaar aniga ee abtiyaasha iyo qaar aniga ee adeeradayba dowladda ku dhex nool oo ku dhex jira oo dadka tacaddi u geysanayo maaluba dadka xidhayo laga soo dacwoonaya dowladdeena ku jiraan marka micnuhu ma hadda inaan mataqaanay dowladda markaan ka hadlayo inaan qabiil ataagayo inaan qabiil ka hadlayo maaha micnuhu waa dowladda jirta ee markaa dhisan xukunka haysa waxyaabaha ku dhaqmanaysa iyo waxyaabaha isku raacday ee ay dadka ku sameynayso iyo tacaddiga ayaan runtii aad iyo aad uga soo horjeeda oo aan ka hadlayo oo aan cambaaraynay marka ha u arkinina qalad ha u arkinina qabyaalad ha u arkinina inaan qabiil ku ataagayo ha u arkinina because hadday qabiil tahay oo wajigaaba u aragteenba inay dowladdu qabiil toon qabiil ku ataagayo de marka dowlad maaha dowladii meesha ma fadhido waxaas waa wax aad iyo aad u falxun iskana daaye marka siyaasi lasoo hadal qaado ama maxay tahay siyaasi laga hadlo ama dowlad laga hadlo inaa meesha qabiil keentaan oo qabiil ka hadashan aad iyo aad baan ugu xumahay iska dhaafaan idin leeyahay waxaan arkayay dad aad iyo aad u fara badan oo baraha bulshada kasoo muuqda ama baraha bulshada ka hadla oo marka ay ololeynayaan ama ay dadka wax u sheegayaan ku ololaya qabiil ku ololaya qabyaalad ama qabiil ataaga oo qabiil mataqaanaa ka dhiga inuu qabiilkaas yacni qabiil takooran yahay caynkan yahay saysan ma fiicna waxaasi
waxaas ma fiicna wax fiican maaha iska daaya saddexda xisbiyaa samaysateen saddexda xisbi inay idin noqdaan xisbiye qaran oo u aragtaan xisbiye qaran maaha inaa u aragtaan qabiil inaa u aragtaan maaha marka kulmiye la sheego iyo musabixi madaxiina kusoo boodin qabiilkiisi because kulmiye waxaan ila tahay dee inay dad fara badan oo mataqaanaa qabiilo kala ahi ay la joogaan oo ay caawinayaan oo ay doonayaan dee dowladda inay la dhistaan ay la shaqeeyaan runtii marka ciro aa aragtaan ha u arkinin cirada inuu qabiilkiisa uu maskaxdeeda kaga soo boodin iyo nacayba u qabtaan qabiilkaas iyo maskaxdeeda kaga soo boodin u arka inuu xisbigu yahay xisbi qaran oo intaasoo qabiil ay dee mataqaanaa xisbigii ku jirto beri ka maalinna marka xukunka la dhiso ama uu xisbigu waddanka qabsado inay qabiilada ku nool somalilan oo dhan ay dowladdii wada leeyihiin inay wada dhisanayaan oo wada shaqaysanayaan oo wada soconayaan iskuna duuban yihiin sidaa u arka laakiin ciro oo kaliyo meel taagan dee waddan ma dhisi karo xisbina ma qabsan karo waddanna dee keligii gacanta kuma hayn karo runtii marka runtii aad iyo aad baan dhammaantiin ba idiin salaamaya aad baan idiin salaamaya dhammaantiinba maxaa baalkan ka siya sorry aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya amaze love you too walaal macaan love you too walaal macaan noolow adigana waxaan ku leeyahay noolow in badan noolow aad baan idin salaamaya dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya farxaan waan ku salaamay walaalo aad baan ku salaamay siyaasigii waan ku salaamay walaalo dhammaantiinba aad baan idin wada salaamay ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba oo aad joogtaanba maxamed qayo aad baan ku salaamay waan ku salaamay walaalo dadka inta badan waa dad aad iyo aad wanaagsan waa dad sharaf leh waa dad mataqaanaa jacayl fara badan uu ku jiro laakiin waxaa jirta dad yar oo mataqaanaa si yar xun oo khaldan u soconaya oo doonaya ummadan inay afka iskaga duubaan ummadan inay mataqaanaa ay ku sameeyaan afduub ku sameeyaan qofkaasna lambarka siin doonaa telefoonka siin doonaa kan bacdina hallo assalaamu calaykum calaykum wasalaam axmed aad baan ku salaam karto walaal adiga iyo dhammaan akhristayaasha iyo dadka beejka xulana ku dhegeysanaya aad arrin munaasabadkaada saarintani waa shirkii kulmiyo iyo waxyaabaha masiibooyinkii oo deegaanka kaga tegaya hadda maaragtay walaalo waxay ila tahay waxa ku dhacday cadaalad xumo ku dhacday laakiin cadaalad xumada la iskuma raaco walaal laakiin caawa waxaan u kaaliyay aan halkan soo fadhiisto waxay ahayd maadaama hadda dawladdu way khaldami kartaa khalad way samayn kartaa laakiin shacibku waxay ahayd dawladdu khaladka ay samaysay inay arkaan dawladii hadda markaad aragto dawlad sii dhacaysa waxyaabaha lagu barto astaanteeda belada hadda waxaan ku generaalkii ugu dambeeyay hadda maalinta dhaweydee cabdiraxmaan ciro soo degay ciro waa nin waxaan ku wadanka xasanadan kale waa ninka la saddexaad wadanka ugu sareeya waan gudoomiye dhan oo hogaamiye xisbi muxuu cabdiraxmaan loo soo dhoway dartii baa looga qaaday madaxii howlgelinta ciidamada booliska marka cadaaladu meeshan cadaalad kama jirto toddobadii sare marka uu joogo kulmiye dhammaan dalka waxa ku dhacay waxaan ku uri isbedel siyaasadeed mid dhaqaale mid masiibo rabbaani oo ilaahay keeno abaarta iyo maanta fulanka iyo waxaan ka dhacay dhiimiga kulmiya ayaa keenay soo meel haddii ay ka dhacday cadaalad darro dulmi waxaan ku uri masiibo rabbaani inoo ku dhacay soo salimkooda ognahay ninka aldoonna masiibada iyo sharkaada iyo magaranaysaa siyaasadnimada kulmiya uu wado oo maaragtay ka socota deegaamada dalka oo dhan ayuunbaa isagana soo gaadhay ma garatay ayaa ku dhacday dhe marka de waxa weye masiibada duuduub allah inagu dhaafiyey mooyaane imaka coldoon maxaa boqol coldoon oo kala xidhan oo waxaan ku intaasoo wargeys baa xidhan intaasoo saxafi baa xidhan ma dal baa nool ma dad baa nool waa dhulkii baa liibiyin imaka dadkii liibiyin baa dhiban ma garatay
waan ogahay walaal waan la socdaa dad aad iyo aad fara badan baa xidhan maxay tahay oo hadday noqoto xisbiyada oo hadday noqoto xisbiga wadani qaar ka tirsan mas-uuliyiintii ah shalayna shalay miya mise darad waan ogaa markuu cabdiraxmaan cirro soo degayay dadkii soo dhaweynayay in la yidhi hala xidho laakiinse taliyii diiday yidhi lama xidhayo dadka in xilkii laga xayuubiyo laga qaaday waan la socday wax kale loogama xayuubina xilka loogama qaadina waxa lagu yidhi dadka amarkaan ku fulinay inaad dadka masaakiinta ah ee soo dhaweynaya mas-uulka inaad xidhxidhid markuu diido yidhi dadkan lama xidhxidhayan isagii baa xilkii laga xayuubiyo xilkii laga qaaday marka waa wax aad iyo aad looga naxo walaal waa wax aad foolxun waa meel gobolkeedu sii dhacayo waxaan ku uri dee waxaan ku uri adduunyada nimaan talin jirin hadduu bal muuse lagu leeyahay hogaamiye toos bal ma soo taabana muuse dhammaan dalkan wax istiriyo taariikhu ku leeyahay ma jirto cv caalamkana qof cv ka dhigta waxbaan laayay oo dad baan xasuuqo waxbaan nacay muuse cvgiisu waxa weeye dad baan xasuuqay dad baan istab meel u dhigtay magaranaysa mooryaanbal meel koox dad u galay gebigiisa warkiisu waa inta iyo beero u dhacay iyo dad uu hanti ka dhacay imaka meelaha ka raryaabay kulmiyada haya kulmiya ninkii beriga hore soo saaray axmed siiraayo waayo day kastoo imaka siyaasadda ka bareeratay dee nin taariikh lagu waayo ilaa dowladdii maxamed siyaad wax soo ahaa kolley siilaanyo waa qof aad iyo aad mataqaanaaye u caqli badan waa qof sharaf badan siilaanyo kolleyba siilaanyo afxumay nagama geeyo walaalo waa laakiinse ilama aha waxaan talooyinkan inay talooyin siilaanyo ka imanaya inay yihiin ilama aha marka waxaan u malaynayaa inay waxyaabahan lagu dhaqmayay iyo waxyaabahan la sameynaya inay tahay waxyaaba meel kale ka imanayay ama dad kale kasoo baxay laakiin siilaanyo dalka nidaamkiisu si kale u socda sababtoo ogaalka markay kaaga warramayaan de axmed imika waa nin weyn waa magaranaysa ilaa cimrigaa u dheereeya de magaranaysa hadda waqtigii taladiisu imika baryahan ba umu rabinba meesha laakiin dad ba foorsaama la-aan bu isagu meesha u jooga madaxweynu laakiin dad ba meesha si qaldan maamulaya waxaa ku rag baa isku haysta imika aan cidina dooran doonin baa isku haysta madaxweyne qabyaalad baa la soo nooleeyey waxaan ku wadanku uu ka gudbay magaranaysa dhowr iyo 20 sano ka hor wadanka waxaan hadda ka socda waa masiibo qaran dadku shacabku sii midaysan barin galbeed in looga saaro xisbiga magaranaysaa imaka dalkii ka dhigay kala qoqobay ummadii kala qaybqaybiyay dadkii waxaan kurqaar xidhaya qaar hantidoodii dhacay magaranaysa guud ahaan dee somaliland imaka jirtaa ma jirto dalku wuxuu ku jiraa imaka meelaynaan garanayn buu marayaa markaa waa masiibo qaran masiibadaa lagu ducaysto walaalo dadka social media iyo meelkastay joogaan waxaa leenahay walaalayaal dadtiin soomaali dhinac walbay degtaba dee dalka imaka waxaan kuru maamulkii waa ku xumaaday nidaamkii markaa dadka aad magaranaysaa sida khaldan maamulku ugu xumaadeen waxaa leenahay loo soo duceeyo war kale ma jiro walaal dowlad imika ma jirto dalku waa baaba ugu jira haye way walaal maxamed axmed aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal aad baan kugu mahad celinayaa thank you very much adiga mudan dadkuna marka kulmiye lasoo qaado iska jiboodan kulmiye wax jira ma wax sii socda waxaan leenahay dadkiina iyo dalkiina dhinac ka raaca oo sinaantii iyo cadaaladii horumarka taageero qabyaaladii kasoo baxay iyo dulmiga iyo mugdiga iyo xumaanta aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal aad baan kugu mahad celinayaa axmed thank you very much kolley waxani waa siyaasad bay ila tahay siyaasadana inaynu baranaa wanaagsan runtii kulmiye hadduu calaf ku leeyahay ama kursigan ilaahay uu qoray inuu ku fadhiisto wuu ku fadhiisanayaa wuuna kusoo noqonaya haddii aanu calaf ku lahayna wuu soconaya laakiinse wax walba waxa ka wanaagsan wadajirka iyo walaaltinimada in la ilaaliyo runtii haddii wadajirka iyo walaaltinimada la ilaalin waayo haddii mataqaana ixtiraami waayo haddii la kala dambeyn waayo haddii adduunkiiba laga dhigo inuu xisbi kaliya yahay mataqaanaa wejigaagii o dhan aad xisbi saartid dadkii o dhan aad mataqaanaa ku caydid waxaad doontid aad ku samaysid xumaan iyo mataqaanaa xurguf aad ku abuurtid dee xisbi muxuu yahay xisbi beri buu imaanayaa wuuna tegaya runtii laakiin wax walba waxa ka wanaagsan wejiga wanaagsan iyo walaaltinimada wax walba ka wanaagsan oo dalkan lagu wada haysto dalka ayaa wax walba ka muhiimsan dalku ma tegayo laakiin dadkani way tegayaan beri bay tegayaan qaar kala imanaya haddana beri bay tegayaan haddana qaar kala imanaya dadku way isbedelayaan laakiin dalku ma guurayo halkiisi buu degnaanayaa dadkuna way ku wada nool yihiin oo dee ilaahay baa isbaday marka ummadii ilaahay isbadee meesha ku wada nool inay sharaf iyo karaamo ku wada noolaato oo aanay ceeb uga dhaadhicin iyo weji xumo aanay uga dhaadhicin oo aanay isxagxaganin ayaa runtii qurux badan caloolxumada iyo mataqaanaa cayda iyo yacni dadka qaar baaba waxay moodaanba xisbi marka la yiraahdo lasoo hadal qaado waxay moodaanba mataqaanaa inaanay kama dambaystiba inay tahay
bamboodaan markaasay wax allaaliya waxay doonaan ku hadlaan markaasay wax allaaliya waxay doonaan soo qoraan markaasay iska caytamaan markaasay waxaan ku waxa calooshooda ku jiro dhan ay halkaas soo dhigaan runtii aad iyo aad baan ula yaabaa waxa weeyaan xisbigu dee haddii ilaahay u qoray oo dee waxaan waa qoraal adigu ma ogid anu ma ogi waa qoraal weeyaan waxani haddii ilaahay u qoray uu doonayo kursiga inuu ku fadhiisto ilaahay la maagay kursiga wuu ku fadhiisanaya يعني ما بقى هو حن إسكو حيجنا ما بقى هو حن متقناي أن وجهين أن كو وجه ساقنا ما بقى هو حن متقناي إسكو عينه معها هدي إلهي وقري كرسي وكو فريسانيا هدي أن إلهي وقرينا كوما فريسانيا لكن محن إنه إسكولان إنه حن إسكولان هاي إنه إس احترانه إنه ولاتنا ماذا إجنو إنه إسقدرين تأجنو إن إلهي دولكم وينقو وذا أبورو وين وذا دقنا وين وذا شوقي ناي ضلنا وإسكان بداية يعني إني وناجينا كشقين سي شرف لي وناكسن أي نوضا نولانو على الحمضة يعايدة يسرحيحة وحاسي ماها وح النسي وضي ماها أنا جنا على الحمى يقول ربيع أنا جنا على الحمى يقول ربيع حسبي جنا بريكا معلم بيسكت جاي ضد كنا بريكا معلم بيسكت جاي أم شير وحن هو أو أن هو إنه عبد الرحمن إرو يمصبحي فيصل علي ورابي ay hundeel wada fadhiistaan maalin walba ku wada qadiyaan oo ku wada sheekaystaan waxaan hubaa inay maalin walba is arkaan wada sheekaystaan in waxaan hubaa inay rag saaxiib yihiin baan hubaa waxaan hubaa inaanay meel laba aanay ku kala tagayno laakiin inagu shacabku yani cadaawada intan leega aynu samaynayno aynu isleenahay waxba u kala hiilinaysaan ee kolba aynu dhinac qaar saarayno ee aynu inagii iscaayno ee inagu cadaawada is dhex dhigayno iyagu kuma qabaan runtii iyagu waa ragga saaxiibka ah baritoolana kii qabsadaba kii kale uu la wadaagi waxay ila tahay hadduu Ira qabsado hadduu Muuse qabsado hadduu Faysal qabsado waxay ila tahay Ira iyo intaa kale ee mataqaanaa xukuumadda ku jirta ee mataqaanaa xisbiga kale ku jirta ee u tartamaysaaba inay garabkiisa fadhiisanayaan baritoole oo ay mataqaanaa iyagu iska fadhiisanayaan oo iyagu iska ka yaqaanaan oo ayagu iska kaajcelin oo ayagu siyaasiyiin waxaadna ogaataa waxan inay tahay de siyaasiyiintu dantooda u socdaan way shaqaysanayaan dantooda u socdaan marka adiga maxaa adiga danta wata de adigu waa inaad eegatid maxaa ku dana adigu waa inaad eegatid maxaa dalkaaga u dana maxaa lagu qabta ma inaad siyaasun inta labada dhagood nabtaad iska daba cararto because maxaad ku daba cararto waayo waa qabiil baad ku daba cararaysa labada dhagood u nabataad u daba cararaysa ugu qaylinaysa dadkii u xumeynaysa dadkii wajiga ugu bedelaysa dadkii u caayaysa maxay tahay aad u dhiganaysa naxli iyo calool xumo iyo waji gabax waxaas waa waji gabax marka ceeb weeyaan waxaas runtii qofkaas ay siinayna horta laba qof waan siinay laba qof kale siinayna dabeetana ka bacdi commenkiinan akhriyaya السلام عليكم السلام عليكم والله الآن بنكون سلام يوم نكسر دوينيا هلا ما يمغشا سوى عم بقوم غلايا هذا وك سلام كل مركوب آد بين أنا كون سلام يوم نكسر دوينيا هكذا تجلس هاللي سي مقعاقنا سمتر حدك سمتر وآد بنكون سو دوينيا مش تجلس هاللي سنة وعرفت إلى تاي إمارات كتجلس هاللي سدبي waad soo dhawda wala aad iyo aadna waan ku soo dhaweynayna waana lagu wada daawanaya caaw maxaad nagu kordhinaysaa haye waxa weeyaan ilaahay balankiisa leeyahay ilaahay dambigiisa dhaafiyay waa wala xaray hadii laga qalbiyo maxaad markaa aad ka wada wal Cabdimaalik wareer wal ummadba wala wada xidhaa wala loo dooday wala soo daayay wala loo dacwooday wala laga hadlay maxaad ka wada markaa
كيفان اوغين والله سبعا كوما مقلعتها سبعا مو مقلين محد اديك لفتك كهادلي هي وان كوغاهي والله الحقيقة وان كوغاهي عبد المالك نور وان وهايا وانا الله سعدا marka adiga macnaha muxuu yahay adiga ma Cabdi Maalik baad u doodaysaa ma Cabdi Maalik baad ka soo horjeedaa muxuu yahay adiga macnaha ma qofkaaga iyo cadee dee kuma maqlo si fiican kuma maqlo codkaaguna aad buu gogo'ayaa walaalo hallo waan ka xumahay aad iyo aad buu codkiisu gogo'ayay maan maqlaynin laakiin waxay ila ahayd markaan mataqaanaay aan eegay inuu kasoo horjeedo lahaa waa la xidhay maadaama la xidhay in laga hadlo maaha in loo dacwoodo maaha in la xasuusto maaha de hadday sax tahay haddii kalaba run waxaa halkaa iiga soo garaacayay siyaasiga xorta ah waan lambarkan ku siinayaa lambarkan iiga soo garaac walaalo waad maqashaa bay ila tahay lambarkan xagga kugu soo qoraya dabeetan lambarkan iiga soo garaacaya muxuu ahaa 4400 halkaa waan kugu soo qoray siyaasiga xorta halkaa iga soo garaac saddex app save gare dabeetana halkaa iga soo garaac walaalo time fara badan inaan kusii jiro maan rabin kolleyba qofba aragti buu leeyahay qofba mataqaanaay maskaxdiisa waxbaa ka dhex guuxayay qofba mataqaanaay waxbuu isleeyahay sheeg laakiinse anigu waxaanba kasoo horjeedaaba oo mar walbaba kasoo horjeedaaba qof bili-aadana inaad mataqaanaay dhibkiisa aad ku farxdid oo aad u dacwootid ood weliba isku xoojisid si aad u muujin lahayd qofka bili-aadanka in mataqaanaay dhibka lagu sii adkeeyo oo lagu sii hayo oo ama mataqaanaay qofku waan buu ujeednaa inaanu dee khalad weyn aanu cabdimaalig gelinin waynu ujeednaaba cabdimaalig inaanu wax khalada oo galay aanay jirin laakiinse waxa lagu xidhayba inay xaqdarro tahay inay dulmi tahay inay xaqdarro tahay inay dulmi tahay marka dulmiga waxaan aad iyo aad uga xumaaday dadka dulmiga difaaca waa munaafiqiin uma fiicna aakhirana uma fiicna ifkana uma fiicna waayo maanta marka adiga lagugu khaldamo ee adiga khald lagugu sameeyo maad jeceshahay in dad fara badan intay raayso taagaan qaladkii lagugu sameeyey ay saboor gareeyaan oo ay mataqaanaa dulmi weliba ku difaacaan maad jeceshahay dulmigu ma fiicna waa aabbo xaas buu leeyahay hooyo iyo walaal buu leeyahay dad masaakiin oo caawinayay waxa laali wuxuu kugu sameeyey ma jirto qori muu qaadanin muu dagaalamin yacni word oo afkiisa ka yiri ayaa intaasoo dhibaato uu u mutaysto oo lagu xidhayaayo waxaasoo dhan lagu sameynaya runtii waxaan arkaa khalad aad iyo aad weyn baan arkaa laakiin waxaa kasii liitaa ka difaacaya hello 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 عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آدي آد بنكون سو دوينيا أنا آد بنكون سلام يا والله الآد بنكون سو دوينيا سأقول هذا الوالد مقليان نظام سياسي أو وطن كقوة ومدوم وحوي نظام سياسي أو ما أنت أمتي استدل الشو
weliba cadceedda ay fadhiyaan cashuurta laga qaadana ay rag waaweyn oo dawladahaasi ka yimid oo kusoo shaqo tagay dalka ay maanta ku antifacsanayaan ay gurya ka dhisteen dawladaha ku tamasireen xisbiga wadani ay u arkaan xisbi qaliil laakiin ah xisbiga garaanta iyo mustaqbalka xisbiyada Somaliland walaalaha Soomaaliyeed ee jaarka aynu nahay ee walaalaheen ah xumaan uma aragno bulshooyinka Somaliland waxa weeyaan dad oo arka xisbi qabiil laakiin xisbi qabiil ma xisbiga wadani hataa lagu shaqaynay Cabdilmalik wadani ah Cabdilmalik wuxuu ahaa samafal wuxuu ahaa qof u gargaara bulshada Somaliland bari iyo dalbe bilaa qoriya ilaa loo yiraahdo صح qof muwaadin ah jeelkana rag baa loo sameeyey waxaa maaha jeel uu ka soo bixi doonaa marka runbaa ugu kordhay iyo sharaf صح wuxuu ku sameeyey wax dadka xiray iyagu waxa weeyaan dad daciif ah oo moodo qof fikradiisa cabari walba inaan karno uu ku khaldan waxyaalaha qaarkood laakiin qofna meel ma geli karo qawsiga aqoonsitoonkeyga iyo halgankii raggii soo dhintay dalka dadka laakiin ku shaqadeynaya wadani ee kaga dhigaya qabiil ee kaga dhigaya Cabdilmalik inuu yahay qof wadani ay isku meel yihiin ama ay isku meel yihiin wada daciifa fikradooda ummadda ka dhaadhicin kari waayey maanta way arkeenay musharaxa xisbiga kulmiye ee xaakimka madaxweynihii dhammaaya dalka inuu yiri 5 sano wadanka ninkaasi maamulayeen xisbiga maamulayeen xisbiga waxa weeyaan xisbiga ninka arkay hoggaanka xisbiga kulmiye qaladkiisa marka walaalo aad baad u mahadsan tahay sida shaqada iyo qiimaha la ilaaliyo marka ummaddu waa walaalo caawiyo 12 dawladood weeyaan xudud bay kala leedahay baasaboorada ay kala qaataan oo maxalada filayaal baa lagu talagalay koobiyo war isku carab oo isku afar oo isku diin ah marka dadka ka dhigaya caadifada iyo nabarka dadka xoogaya ee damqaya waxaan leeyahay kadib walaala ka daay waa dad walaalaheena wixii dhacay wuu dhacay maanta Somaliland aynu nahay iyaguna waa Soomaaliya waa walaalaheen xumaan ma hayno uma hayno wax kale xun dawladaha jaarka xumaan ma hayno Djibouti Ethiopia Soomaaliya Somaliland noolaatan leenahay صح baa loo sameeyay soo bixi doonaan leenahay kuwa ku faraxsana waxaanu leenahay ale mudmanina uu nool yahay laakiin wax fool xun oo maxaa la dhahay duqnimo ها ayaan leeyahay maanta iyo weligeena oranaya caasimadii magaalada Hargeysa ka soo hadlaya in qof walaalkay aad ku faraxid baadidiisa oo qoyskiisa maanta كحرا in isku duuxaan way fiican tahay Somaliland noolaatan leenahay hadna nolol ku leeyahay walaalo sharaf iyo cisi ee karaamad inuu tahay xisbiga wadaniga ha noolaado waa mustaqbalka jamhuuriyadda Somaliland kii yeelay kii diidayba waa mustaqbalkii weeyaan kulmiyana yahay wax naga ban muddo dhaafo ayaan noo ku salaamaya adiga iyo taawadayaasha soo qaybgalay Facebook live-ka ku jirta aad iyo aad baan ku salaamayaa siyaasiga xorta ah aad baan ku salaamayaa walaal aadna waan kugu mahadcelinayaa thank you very much fikirkaaga quruxda badan leed nala qaybsatay aad baad ku mahadsantahay thank you hay walaal aad baan ku salaamayaa kulay aniga badanaa waxaa iga maqashaan bay la tahay inaan mataqaanaa badanaa inta badan aan idhaahdo xisbiga aan kasoo horjeedo kulmiye xisbiga kulmiye waan kasoo horjeedaa waayo xisbiga kulmiye waxaan uga soo horjeedaa already xisbiga kulmiye waa ka iminka talada haya waa ka iminka kursiga ku fadhiya maadaama oo aan iminka dowladii ka cabanayo maadaama aan iminka leeyahay dowladii khaladaadkay samaynaysaa ilaa heerka u gaadhayba oo mataqaana weligeyba anoo siyaasad kaaran aan halka soo fadhiistaan damcay qaladkoodii markuu iga farabatay inaan mataqaana aan ka hadlo waxa ay tusay dee waa xisbiga kulmiye weeyaan taladii dalka iyaga gacanta ku haya marka doorasho labaadoo dib loo doorto oo dabeetana dib loo soo fadhiisiiyo halkii dee wax macnaah oo ay noo samaynaysaa runtii ma jirto wax isbedelahoo meeshii ka imanayaana ma jirto maanta la qaylinayaa waa aragtaan dadkii in jeelka lagu wada gurayo waa aragtaan dhalinyaradii maanta inay jeelka wada fadhido haddaan ku idhaahdo Hargeysa qaybaan qayb jeelkay wada fadhidaa qofkii u yiraahdo waa la qabanayaa jeelka lagu ridayaa yacni macna daro wax allaaliyo wax lagu xidhayaana ma jirto maalintii dhaweyto waa maqlaysaa habla yaryaro 13 jira ayaa inta lasoo qabtaa la xidhay 3 bilood bay xidhnaayeen waa habla yaryar 13 jir baa xitaa ku jiray 3 bilood bay xidhnaa maxay ku xidhnaayeen
maxaa lagu xidhay waxaa lagu xidhay calankii buluuga ahaa diric buluuga may calan buluuga ma xidhan dee diric buluuga ayay xidheen baa lagu xidhay de waa wax aad iyo aad loola yaabo waxyaabaha aniga soo jiitay ee iga yaabiye fikiriirka igu riday ayay waxyaabahaasi ay ka mid tahay moogta nin baa la xidhay maalin dhexdaasa la xidhay markaase waxa la yidhi madaxweynuhu la magac noqday somehow wax aynkaasoo kale ah waa wax aad iyo aad loola yaabo qof baa madaxweyne la magac noqday oo dabeetana jeelka loo jiido waa la xidhay waa wax iga yaabiyey dad baa guryahoodii loogu daadanaya la leeyahay waa guryahoodii baa loogu daato waa lasoo xidhay because of xisbi bay aaminsan yahay ama xisbi bay mataqaanaa ay taageereen yab waa wax aad iyo aad loola yaabo marka anigu kulmiye macaarid kumaan ahayn kulmiyena kamaan soo horjeedin laakiin waxaan ku arkay dowladda inay yacni say u soconaysay ay ka badbadisay oo aad iyo aad uga badbadisay damiirka bili-aadanka ay nagu jiraan waxyaaba fara badan uu diidan yahay uu kasoo horjeedo inay dowladdu ku dhaqmayso ayaan arkay marka maadaama oo aan arkay anoo halkaa ka jooga maadaamaba aan arkayba waxyaabaha ay samaynayso waxaan go-aansaday markaa inaan gebigoodaba kasoo horjeesto ku mucaarido wax qalada oo ay sameeyeen oo dhanna aan dibadda soo dhigo shicibkana aan tuso waxyaabaha ay sameynayaan kolley qof walba oo damiir ku jira qof walba oo fakeraya qof walba oo wax kala garanaya wuu iska arkaya qaladaadka ay sameynayso dowladdan ay ku kacayso dadkiibaa airportka loo tuman yahay waa lasoo qabqabanaya waa la xidhaya jeelka lagu ridaya waayo xamar buu booqday farmaajo lasoo qoslay diric buluuga magaalada la dhex maray maxay tahay magacii wuxuu la baxay madaxweynuhu la baxay maxay tahay shalaydan qoyan waxaan arkayay xisbiga wadani madaxdiisii ayaa dalka imanaysay waa muwaadiniin waa guddoomiyihii dhammaaya baarlamanka madaxweynuhu u tartamaya dalka xaq buu u leeyahay waa lasoo dhaweynaya dad baa ka hortegaya war yaa yiri yaan loo soo bixino laga hortegino lasoo dhaweynaya yaa yiri yaa xaaraantimeeyey waxaa lagu leeyahay dadkii ka hortegayey ee shicibka ahaa ee soo dhaweynayay ayaa askar loo dalbaday markaase waxa la yidhi dadka soo xidhxidha askartii markaa janarkii guud ee askarta xukumayay ayaa runtii anigu magaciisa si fiican umaan soo akhrisanan magaciisana imika halkan kama sheegi karayo haddaan magac khalada sheegana khalad bay igu tahay runtii marka waxaa lagu yidhi soo xidhxidh dadkan soo xidhxidh askartii buu u diiday wuxuu ku yidhi ma xidhaysan maxaa u xidhaysan dadku maxay sameeyeen يعني قدوميها سو دوينين حزب دان او قران باي يعني سو دوينين wax qalad ma sameeynin wax yani dhibaato ma sameeynin xaq bay u leeyihiin soo dhaweeyaan maxaa marka loo xidhay reasonka marka dadkan askarta lagu soo dayay leeyahay dadkan xidho jalka dhig maxay tahay markuu ku diiday oo yar lama xidhay joogsada markuu ku yiri ayaa laga qaaday darajadii laga xayuubiyay xilkiina waa laga qaaday waayo amarkii la soo faray ayuu ku dhaqmo waay dadkii buu jeelka ku guri waay xidh waay waxyaabahaas oo kale ma idin la tahay hadii ilaahay damir idin geliyay hadaa inuu fakaraysaan hadaa inuu wax kala garanaysaan waxyaabahaas oo kale waxyaabo loo dulqaatameyta miya u dulqaadan kara lahaydin miya fadhi lahaydin miya eegan lahaydin haye maanta dambana de gurigaaga lagu soo garaacay maanta dambana ayeedaaba la jiidaya jeelka la dhigaya xidhaya qofkii inuu yiraahdo waa la xidhaya waa la jiidaya jeelka dhigaya marka miinu aamusnaana ma afkaynu xidhanaa waynu daawanaa miya waa maya ma daawanayno xaqdarrada ku dhacday cabdimaalig tanay ka mid tahay dowladdanay ka mid tahay waxyaabaha aniga dowladdan igu soo jeediyey aan tooshka ugu wiifiyey aan u eegay waxay ka mid halkan ha iga soo garaacin waa qofka halkaa iga soo garaacayow magacaaga si fiican ma neegin laakiin halkan ha iga soo garaacin walaalo ha iga soo garaacin halkan dadka iga soo garaacaysa hawada ka baxaysa ama khadka hawada ka baxaya marka dhibaatooyinka aan anigu dowladdan ku mucaaraday ama aan dowladdan kaga soo horjeestay waa reason caynkaas oo kala ah oo fara badan canabe halka ha iga soo garaacin canabe lambarkan ku soo qoraya xaga iga soo garaac canab ama qoraba canabe lambarkan canabe iga soo garaac halkan ha iga soo garaacin hawadu ka baxaya canabe aad baan ku salaamaya waa 0044 747 4499 qoro marka halkan iga soo garaac ساتاب كرا واتساب كيك سوغرا عن بعد بنكو سلامي انا بي دمانتين بعد بان idin سلامي ها احمد عبد الله وكاس ولا هلكا iga soo garaac anabi
dhammaantiinba aada iyo aad baan idin salaamayaa khayr baan idin soo wada rajeynayaa dhammaantiinba waxaan jecelahay qaladaadka markaad aragtid waa caadi anabi walan caadi no problem qaladaadka markaa aragtaan waxa dhibaatooyinka markaa aragtaan waxaan aada iyo aada u jecelahay inaa agaagi lahaa runtii wuxunbaa mataqaanaa dabqabsoon bilaa wuxunbaa mataqaanaa inoo hagaagi lahaa laakiin haddaynu indhaha ka qabsano oo aan ku difaacno waa adeerka iyo anigu iyo xiga iyo mataqaanaaye dowladdan u leenahay iyo dowladdan difaacayna u leenahay dowladda qof lihi ma jiro dowladda qof lihi ma jiro dowladdan waa dowlad waxay dowlad u tahayna inay shicibkaasoo dhan ay u wada adeegto danta guud ay qabato maadaama ay dantii guudba qaban weyday maadaama ay dantii wixii loo diray ay kasoo bixi weyday de markaa reasonad u difaacda tale dowladda annagaa la wana difaacaynaa ma jirto oan musuq maasuq ahayn iyo haddaanad wax ku qabin oanad wax ku qaadanin waxaad ku qabtidna waxaad ogaataa inaanay weel fiican ku buuxinaynin oo ay tahay xoolo xaaraanna weel fiican kuma buuxinayaan runtii waxna kama helaysid aakhirana waa loo socdaa waana la dhimanayaa adduunku waa ayaamo marka ayaamahaad adduunka ku nooshahay waxa qurux badan inaad mataqaanaa iska ilaalisid waxyaabaha qaladaadka iyo dhacdhaca runtana ina ogaataan oo runta isu sheegtaan ayaan aada iyo aada u jecela ma ihi qof wadaadada ma ihi mataqaanaa qof aan ku leeyahay mataqaanaa dee wacyi wadamaha ka jirin laakiin waxaan qabaa in qalbigaygu qalbi wanaagsan yahay wadnahayguna wadna wanaagsan yahay oo nadiif uu yahay inaan waxa qaldan oo dhan aan kasoo horjeesto ilaho mu aabahay ahaado ilaho maanta mu aabahay silaayo mu aabahay ahaado halkaas isu tagna waxaan ku lahay aabahay qalad buu sameeyay inaga qabtaan idin oran lahaa runtii waan idiin sheegi lahaa xunla aabahay qalad buu ku socdaa inaga qabtaa baan idin oran lahaa adinkuna saasoo kale ayaan jecelay inaa runta iskooda sheegtaan oo iska qabataan wixii qaladaada ee meesha ku socda dowladdu waxay samaynaysaa hadanaynu indhaha iska soo tuuraynin waa qalad aada iyo aada weyn bay ku socotaa yani waa aragtaan oo abaaraha dadkii ku habsaday abaar baa dadkii haysataa dadkii way dhimanayn waad arkaysid dad nool baa yani markay waxay cunaan waayeen xarig intay isku qabteen isa soo daldalo isdilay ninkaa isdaldalay aan dib idinku noqdo aan idin yar sheegay ninkaa isdaldalay wuxuu ahaa faamiliyadii uu cabdimaalig ugu tegi jiray tuulada uu ku caawin jiray uu lacagta ku siin jiray uu cabdimaalig haye gacanta ku hayay ayuu ahaa ninkaasi markuu waayey wax alaali wax caawiye wax alaali wax siiye wax alaali wax taakuleeye markuu waayey dee waxa liigu soo baxay dhowr tuuluu tegay waxbuu weydiistay waxba uu ka waayo waa la eri wuu tagaa war waxay siiye wangaajoonaya waa la eriya wax lagu yar xukuma hayna naga tag kabacdi muxuu sameeyey dee isagana tiisii baa qornayd oo saacadiisii baa dhammaatay waa kan intuu xadhiga isku qabtay isdaldale geedka iska soo daldalay runtii aada iyo aad baan uga naxay dee waa qof mataqaanaa gaajo darteed iyo calool xumo halkaa iskaga soo daldalo isdilay marka dadkii masaakiinta ahaa ee cabdimaalig caawin jiray uu cabdimaalig wax siin jiray uu cabdimaalig quudin jiray runtii ayay dadkaasi ka mid ahaayeen maantana waa kaa isdaldilay dad fara badan oo caynkaasoo kale ahayn way joogaan oo way buuxaan oo waa kuwiiba hadlayay dee intay fideoda iska soo duubeen hadlaya cabanaya la-aan noo soo daayay cid allaaliya cid ka warhaysa cid allaaliya cid caawisa cid allaaliya mataqaanaa cid ogi ma jirto marka dee dowladdii dhammayde dadkan igmatay haddii aanay caawinaynin haddii aanay mataqaanaa dowladdii dhammayd aanay gacanta ku haynin runtii waxay ila tahay waan maxamed kaafi aad baan ku salaamaya aygu mucaaradaya maxamed kaafi aygu mucaaradaya أنا معارض ما هي أقوم معارض يا السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدوان كوسو دوين يا